بسم الله الرحمن الرحيم aad baa ma santiin meeshan dhibaato aad weyn baa ka jirta magacaygu waa maxamed matalan anigoo kale anigiyo walaalkay baan nahay waxaan u soconaa process waxaan ka nimi magaalada Burco waxaan joognaa imka 2 bilood iyo badh hawlaha iyagii kala dhan waan soo dhamaysanay haday baasaboorradii waan haysanaa warqadii CID-da waa haysanaa ku maaliyadda waa haysanaa laanta socdaalka waa haysanaa wax walba waa haysanaa ilaa hadda bil iyo dheeraad ayaan sugaynaa dad 2 bilood sugaya dad 3 bilood dad 4 bilood fadhiya intaba way joogaan marka dadka waxba looma qabto maalin walba dad yar baa la yeeriyaa dadka yarna 3 meelood oo 2 meelood wala soo cishaa waxa lagu dhahaa waxa ka dhiman maalin walba wax yar oo macna lahayn inta kalena waxa lagu dhahaa bil baan kugu dhufanaa 3 bilood kuma siinano safaaradda halkaas ku taal maxaa idinku halkeen fariisiyay waxaan siiyay safaaradda soo dhaweyn kama helo meel la fariistano noomay sameyn halka hadda istaagtana askari baa qori kugu soo yeerinaya asraa cabashadaada ugu gudbi iyo inta joogtay in waxa anaad ugu mahad celinayna dadka iskala hotelkan oo iyo dhirtan oo kuraastan dadka siiyay oo halkan ku soo dhaweeyay oo inta ay hawshoodu ka dhamaanayso halka fadhiya waxna la weydiin dadkaas aan u mahad celinayna safaaradda Itoobiya iyo shaqaalaheeda soo dhaweyn dadka ma siiyaan iyagii bay sii cadibayaan adiga walaalka imisa joogtaan garowe waxaan joognaa imka 2 bilood iyo badh baan ugu joognaa hawshin xageen maraysaa waxay noo maraysaa bil baan hadda waxaan sugaynaa fiisaha kaliya oo warqadeedii laga gudbiyay waxaana haysta laanta socdaalka ayaa haysata laanta socdaalka iyo fiisayntana waxa iska quseeya anagu ma aanan garan sababtoo waxay warqada CID-duna soo siiso anaga iyo safaaradda inaan cid noo dhaxayn aan toos waxayga u geysano fiisahana na siiyaan laakiin waxa dhexda u fadhiista nimanka laanta socdaalka nimankaasana warqadaha haya ilaa iyo lacag fara badan ay dadka ka cunaan ma gudbiyaan adiga inta lacag laga qaatay hadda inta lacag laga qaatay aniga $100 hoolaa laga qaatay ilaa haddana wax naloo gudbiyay ma jirto $100 ka qaatay waxaan naga qaatay ninka laanta socdaalka markuu ka qaadanay muxuu ku sheegay wuxuu noo sheegay inuu bari gudbinayo ilaa ay haddana kuma gudbin miyaa iyo haddana inuu gudbin maxaa marka haddaati dhalinyaradii doonaya fiisaha Itoobiya maxaa hadda in qorshe ah waxaan anagu rajaynaynaa wax kale qorshe nooma jiraan ilaahay baanu sugaynaa iyo madaxda Puntland in ay wax ka qabato wasiirka arrimaha guduhu inuu soo farageliyo arrintan oo wax ka qabtaan oo nala wareysto oo waxa jira loo ogaado ka bacdina wax laga qabtaan rajaynaynaa dadkan qaarkood waxay leeyihiin waxaan lagu xiray in aan tigid ka goosano Ethiopia Airways si yaani diyaaradda loo raaco arintaasi bal sharaxaad ka bixi way jirtaa in waxa ay u danaynayaan iyagu diyaaradda sababtoo ah fiisaha kala 3 bilood waa $60 laakiin diyaaradda markaad goosanayso $440 iyo $60 fiisaha $500 weeye family 8 qof ama 3 qof ama 4 qof ma kari karaan dadku iska wadnaha dadka intii kari kartaa way goosatay laakiin dadka aan haysan ee awoodin 4 bilood fadhiyo meesha qaras ka dhamaan ma awoodaan maalin walba waxa loo shaqeeyaa 5 casho la shaqeeyaa usbuuci 5 casho 3 kamid ah waxa loo shaqeeyaa dadka diyaaradda inta kale dadka dhulka loo shaqeeyaa 5 qof ama 8 qof marka la yeeriyana waxa la soo celinayaa 4 baa la soo celinaya cabashadaad laanta socdaalka iyo CID-da iyo dawladda Puntland ma gudbiseen inta dawladda wali anu hore uma aan gudbin haddaan halkan dawladda ugu gudbinaa laakiin laanta socdaalka maalin walba loo gudbiyaa waxbana kama qabtaan waana iyaga nimanka waraaqaha hayste aan soo gudbin maalintii safaaradda imisa qof bay qaabishaa waxay qaabishaa adu 15 qof ay u yeedhaa laakiin waxa fiisaha la soo siiyaa 4-5 qof kama bataan inta kale waxa lagu soo celiyaa ama waxba ka dhiman ama adu marba waxba lagu soo celiyaa laakiin maalintii waxay qaabishaa adu 5 qof kama bataan aad baa maasan tahay dadka fiisaha ka doonaya Itoobiya dhalinyaradan kaliya ma waxa ku jira hooyooyin iyo gabdho ka yimid magaalooyinka baxsan bal waxaan weydiinayaa magacaaga aniga Saciid Axmed Maxamuud baa la yiraahdaa Saciido maxaa halkan ku keenay halkeesa ka timi waxaan ka imid Boosaasan ka imid waxaan u imid fiiso inaan ka qaato Itoobiya 3 bilood baan joogay 3 biloodna waa la ahan bal sharaxaad ka bixi sidee ku laadahay ilaa waxa way lacag baa bixinaysaa waa lagu shaqeynaya aniga waaba la ahay geedkaas aan fadhiistaa ka hoydaa ilmaha yarka baan wataa gacanta aan ku haysto xafaayadeedii baan la ahay adduunkii wax kasta waa iga go'een transportkii waa iga go'ay wax kasta waa iga go'een halkaas aan ku dhibanahay 3 biloodna waa ii dhamaatay marka nidaamkii lagu talagalay in fiisa lagu qaato Soomaaliya marin waa mare warqadii kulli waa soo dhameystay hadda ma garanayo waan garan lahayn aniga ma aqaano caqabad maxay tahay asleeda wallahi ma garanayo waxay tahay aniga waxay tahay ma garanayo halkaas aan fadhiyaa kana hoydaa wixii markaad aragto indhahaaga shaahid ku aragto wax ka sheegtaa
anigu caqabad iyo haysato ma garanayo laanta socda waxaan ka codsanaynaa dawladda Puntland awlaad baan haysanaa ilmo yar baan haysanaa halkaasaan ku cadibanahay aniga ma aha dad baa 5 haysto dad 4 haysto oo xafaayado ula oo halka ku wada kaadina ku wada xaaray dhibka haysta marka inay dawladda Puntland wax nooga qabato anaga wadankeena joogo wadankeena in lagu gumaysto ma aha hadday waxa ii sheegaysa in safaarad ka tirsan gabar Soomaaliyeed cadhufay sidee ku cadhufay maxaa ku tibaa arintaas wallahi aniga ma joogin gabdhaha ii sheegay mid intii aragta adiga ma aha qofkii la cadhufay ها أنا ما تشوقين لكن أنا الماء عند السيسناي وحلي ويجري قبل وجوكتا ويكورسن دونتاي أنت ورصتي وعنده فوق السي ورقدها محن ويجري ويده مركب قبل جوكتا كورسن تاس هذا قرح آد بكرة شهي طبعا وأدريم هنا المير وتد حدي سنة كوس صوت محار تشانيس هذا محن صوبنا يا دنت وحين نقنيس أنا نقولي يقول نقدر رفعت هست دنت تاس يقول نقنيس أول في ساي توبي محاك فريس في ساي توبي حنكون في لايف بروسيس بقى يجي حراسة ماشى marka dawladda maxaa u jeedinaysaa dawladda waxaan u jeedinayaa anaga dad caafimaad u socdaa jiro dad barasoos u socdaa jiro marka dawladda waxaan u jeedinaynaa Puntland inay wax nooga qabato dhibka naga haysta geedkaas aan hof fadhino qorraxdaas aan joogno duhurka saas ay tahay hadartan duhurka ay tahay rajaan ka sugayna halkaas baan fadhinaa wax noo qabanaay malaha dawladda Puntland waxaan ka codsanaynaa inay wax nooga qabato halkaas oo dhibka naga haysta caruur ilmaan haysanaayo wax nooga qabtaan aad baa maasan tahay walaal magacaaga adoo ku bilaabay ayaan aadan warsamaanaydhaa hargeysaan ka yime caafimaad baan u socdaa marka dad bay caawinayay oo dhakhtar halka ay leeyahay Itoobiya mo haddana caruurteedii yar waan ka soo tagay guriga 2 bilood iyo wax baan joogaa wax lay qabtayna ma jirto qof aan aqaanana ma laha hudeel baan ku jiro hudeelka markii dambe waxay dheen lacagdaana bixin lacagta qarashiga dhamaatay 700 baan weytay banaanka u baxreer islaameed baan dala seexdaan garanay marka ayaan adiga markii hore waxa u timi fiisa inaad caafimaad ahaan u aadid Itoobiya boroseeskii nidaamka lagu talagalay ma madhay wax kasta waan maalaanta socodka wax ay dhiman ma jirtaan ku inan baan la hadlay inankii waxaan ku walaal waraaqdeeda meed maalin kasta wuxuu yiraahdaa gee way taala safaarada taala waxay taalana ma arkin caruurteedii mid yar baa la leeyahay oo aan ka soo tagay ciyaal yar baan ka soo sax jira way gubataa la yirina ina baa gubtaa la yiri hadda waxaan ku hayaa waxa ay sadaan gaari hata nool helena dubis kaga noqdo oo hadda waa ka rajo dhigtay inaad fiisa ka hesho Itoobiya wali wax maalin baa la qabanay geedkan subax kasta reerkan ka soo kala noo quraan oo ana qadin maalin kasta waan imaada hadda dadkii iga dambeeyay bisha afraad imaadeen way heleen waxay ku heleen sababtaan ma garanayo markaan qofka ma garanayo meesha ii joogana ma garanayo guri islaameed markaan dhaalka 700 iga dhamaatay waxa lagu yiri lacag hadaan dhiibin iska bax reer islaameed baa marka hadda aan la noolahay oo xareeyay ana wadada iska ooynay marka wax ay faa'iido hadda ay yeelan booyna iska noqday dantii ugu kalifaysa marka wax sharuud ay kugu xireen oo aad filin weeday miyaa jira ma yani waxa lagu xiray ma jirto maalin kasta ballanta waxay leen waraaqaad waan gudbin inta hadal kama hayo wax intaas baa hadal qura ka hayaan marka dawladda Puntland maxaa u soo jeedinaysaa waxaan u soo jeedinayaa dad waxaana dad walaalaheen inay na caawiyaan ay saas nooga eerkaan Itoobiyaanka haddaan wadankooda tagna hana gubaystaan wadan Soomaaliyeed baan joognaa marka haddii dadku waxa jira lacag iyo wax la sheegaan lacagna ma arkin wax la weydiiyay marka haddii taa lacag ay dhahaan lacag aan bixinaa ma joogo Puntland baan joogaa dad muslim baan joogaa ma garanaysaa marka guriga hadda waan haystaa haddaan waayo waan iska noqonayaa aniga caruurteeda ay baahan walaal magacaaga سعدية عبد الخليف جامع سعدية حياتي قال كعي طبعا سفارة أسعودية هنا في سقاط في سنة عيربت عافمات إلا إمسا شوكت هالكن waxaan joogaa 2 bilood iyo bar hay bal waa sharaxaad nooga bixi ilaa hadda maxaa ku qabsoomay ilaa hadda waxa ii qabsoomay waan galay safaaradii ilaahay amarkiisa ilaahay waa ii fudiyay alxamdulillah laakiin se waxay igu xireen shuruudo ah dhalinyaro tahay wax khaldan ayaad u socotaa camal ah dib 10 bari oo ganaax ay qabteen 10 bari waan soo dhameystay waxay dhahaan maxaan ku dhahay 10 bari markaan soo dhameystaan saaka oo imdo rajada ugu xumeed waxay ahayd inay dhahaan waxaan ku qabanayna ma lahan warqadaha caafimaadka ayaa ka khaldan isbitaalka aad ka goosatay gadaal ula laabo marka warqadaha caafimaadka isbitaalka ka goosatay isbitaalka guud oo gagar waan ka goostay marka hadda maxaa ku qorshaa waxa ay qorshaday inaan ilaahay tala saarto ilaahay baa awood hayaan ilmahayga iskaga laabto waayo waqti badan iyo qarash badan baa igaga baabeen ilaa haddana wixii qabsoomayaan rajo xumo ahayn maalinba maalinta ka dambaysa ma ay jidho de gurigayga ilmahayga man iska aaday hooyaha Soomaaliyeed oo xanuunsan baahay wax ii suurto galayana ma ahan de awood rabbi baa iska lawlaal waaye waa fahmay dadka ku daawanaya bal waxa sharaxaad uga bilowdaa ilaa iyo hadda ilaa iyo markaad bilaawaysa hawshan meelaha madhay dabcan markaa fiisaad dalbanaysay meesha aaday cidda u tagtay lacagta meelaha ku bixisay walaal marka hore waxaan u imaaday aniga marka hore odagayga ay waday wax badan ma tigin qof xanuunsan baa waxaan joogay hotel marka waxa way adii CID-da iyo maxaan ku dhahay maaliyadda iyo isbitaalka guud intaba waan tagnay marka waxa weeye walaal haddii ummadda Soomaaliyeed reer Puntland horta waxaan ka xusuusanaynaa inay ummadeeda shacabka ay si hagar baxsan oo cadaalad ku jirto oo diinta islaamka waafaqsan inay ugu shaqeeyaan
markay ka soo hadho qofka caafimaadka u socda hadii Itoobiya laga diiday anaga Itoobiya waxba ma ku falayno caafimaad baan u soconaa hadda waxa weeye dadka caafimaadka u socda inay marka hore u digaan anaga dad islaam oo walaala oo diinta Nabi Maxamed haysta baynu nahay inay u digaan oo dhahay ininka wax inii suurtagelaya ma lahan wadalkaasna ma gali ka dhaar caafimaad Allah ka bari inay dhahaan weeye hadda anaga wax ogeysiisana nooma ay sheegnin wax walba waa fudayd oo sahal weeye daqiiqadad ku helisaan bay nagu dhaheen lacagta iga baxday ma tiro koobi kara aad bay u fara badan tahay ay wax laaluusha ma aana bixin dawladda waxaan uga baaqayaa horta Rabbi subhanahu wa ta'ala inay ka cabsadaan oo Ilaahay waxa weeye aaminaan oo ummadooda Soomaaliya cadaalad ugu shaqeeyaan oo waxa weeye maxaan ku dhahaayay cadaalad hadii lagu shaqeeyo walaal wax xumaanaya ma lahan hadii laakiin musuqmaasuqnimo la sameeyo Rabbi subhanahu wa ta'ala waxba kama qarsoomo wax walba maxaan ku dhahaayay way u muuqdaan mana fiicina xaq darradu ummadda Soomaaliyeed ee qorraxda dhooban oo iska dhibaataysan maalin walba aan xitaa go'aan la siin qofka hadii la dhaho gurigaaga iskaga laabo waxba hadda maanta ma helis waa macquul laakiin dadba saacban halka ku gaarnaa waxan helnana ma lahan nasiib ma qofkii nooga yeesho naga galana cududaarkaas oo kale ku soo xiraan hadda aad bay meesha rajadeedu walaal u liidataa فار علي والله أنا وعن كي من ملي راجل دوب أنا عبشة أقول أنا قد بيني واحد ثاني هو مركي هالك اللي سلقي يلا باتن قفة أما الشاني لا تنقف أما صوت نقف مركي لا بالله قيمة مالك ميد ولا سوء الشيء اللي سكي بريبان القدرة أوكا ولا سوء الشيء وعلى ميد وعلى رام مستوقات يقف كي اللمبر كي واقع خلدن مقع هذه مستوقات يقف كي وقرنا الشيء مستوقات اللفت كذي واحد ثمد ديت كذي داعي مسوقات laftigeeda ay sheeg saxiixi ba wax ka maqan yihiin waxyaalo badan mid ugu weyn oo kale waxa jira dadka hoteelada 4 bilood degan ala hotel waxa qofka laga qaadan sidii maamadii hadda kale $10 4 bilood markay joogtay waa $1200 oo lacag ma fahant transport qof $1200 u watay marka muxuu noqonayaa marka saaxiib macaan marka adiga hadda intee bilood joogtaa garow anigu hadda waxaan joogaa 4 bari laakiin markii saddexaad oo aan qaadanayo way anigu fiisaha mararka hore ma lagu dhuu fiisaha niyo anigu marna diyaaradda ay fududeysay laakiin dibta ugu weyn oo anigu aan arkay marka laga gudbo laanta socdaalka iyo laanta CID-da iyo diyaaradda waxa weeye dadka kor socotada sida xildhibaanada sida wasiirada oo qofkii intay lacag ama ka xildhibaanada badanaa intay qofkii yimaadaan bay ehelhaan wax ugu dhameeyaan laakiin dadka kale intay qofkii lacag ka qaadaan bay meermeeriyaan geedka yiraahdaan ima waxna uma dhameeyaan hadda rajinta lag ba ka qabtaan ay fiisaha heshay anu insha Allah ilaahay idankiis waan sugayaa ilaahay subhanahu wa ta'ala rajayis marna laga ma quusto fa taqanadu min rahmatillah الله ما صنت